لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد. ولا ليال وحنا كجرنا كتاب كأني 100 الحديث وحنا سو غارني حديث كي لحاد ودرسي لباد بالك انو كبلامنay. عن ابي هريره رضي الله عنه والله كرر النقدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك wuxuu ka warinayay xariis nabadgelyo korkiisa qaal inuu rasuulku yiraahdo man ruuxi qaama istaaga ramadaan bisha ramadaan iimaanan isagoo rumaysan bishaas oo inay waajib tahay wax tisaaban xisaabsanaya ajir wafira waa loo dhaafay lahu ruuxa ma taqaddama wixii hormaray min dambigiisa mutafaqun calayh. xadiiskan waxaan ka qaadanaa fadliga ilaahay bisha waxa weeye ramadaan in la istaago qiyaam layl loo istaago oo qofka marka rumaysan oo waxa weeye bisha uu istaaga isagoo aaminsan rumaysan waajib inay tahayna sida aaminsan oo yaqiinsan xisaabsanaya ajarna waa loo dhaafaya dambi wixii hormaray. dunubtana laba loo qaybiyo saqaa'ir iyo kabaa'ir. dunubta kabaa'irta iyagu tooba gooni u baahan yihiin oo dambiyada yaryaraawi. عن أبي هريرة رضي الله عنه الله كره نقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحكوري قال إن رسولك العمرة إلى العمرة إنت عمرك اللي قال كفارة وحدة فتان لما دنبي بينهما لبضوا دحي والحج حج سؤال مبرور الله أقبلي ولو باري سمي ليس له مسقنا حج كاس جزاء والمرين إلا الجنة جنة متفق عليه. نبي حلي حديث كنا sidii waxaan ku jirnaa waxa weeye dunuubta in lagu dhaafay qofku haduu amal qabto inta amal kale laga gaaray salaad baa tukatay salaada kale inta laga gaarayo waxa weeye hada masaajid wala dambiyada yaryar baa lagu dhaafaa. marka umra adoo soo umraystay oo waxa weeye umrada kale inta ka gaaraysa hada mid kale sunnah ku laabatin waa lagu dhaafay dambigii u dhaxay labada wixii dambi ah gashay waa lagu soo dhaafay hadii laga aqbalay way. والحج المبرور حج لو باري سمي او waxa weeye loo baari sameeyo shuruudihiisii oo afsaday oo wax fasaad aan xajka dhixisa lagu sameeyay la aqbalay laysa lahu masugnan jazaa'una wal marin ila aljanna qofka wax kale lagu janno un ba lagu abaal marinay hadaa xaj tagto xajkana laga aqbalo janno un ba lagu abaal marinay bishaarayso. عن أبي هريرة رضي الله عنه الله كره نقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو كوري قال رسولك يري التثاؤب همهسه من الشيطان شيطان حق اسبكوا هذا فإذا وقت تثاءب همهسه أحدكم حدكين فليرده كعلي ما استطاع وحو أود متفق عليه. دين تنة ودين يصير شيء مركو وحوي وحي لبنا كود ديديو مركي شيء فدودي هاي أما وحلو قرطع وحي كان فعيو كوشاك. دين تنة ودين يصير ودين فضيدة ودين معان waxay inoo diidaysaa wixii inaga dhibina ku ah waxayna amraysaa wixii inaga inoo ah maslaxada inuu ku jiro mafac inuu ku jirto. saas darteed nabigu wuxuu leeyahay hadad hamahsataan hamaasigu shaydaan mu ka ahaaday qofkiin markuu hamahsado oo afka kala qaado wuxuuna saarsado wuxuuna ku celiyo wuxuu awoodo markaas haduu mara garbeed sito cimaamad oo kale ama mara kale ay u saaran tahay uu saaran yahay garbaha go'aas ku qabsado haduusan isaga haysan gacantiisa waxa weeye ha ku celiyo. maxaa yeelay laba dhib baa ku jira. dhibka koowaad hadii adigii baa nadaafad xumo iyo sax xumo ka imaanayso inaad afka kala qaado wax kasta ka geliya in jeermis yar kugu duulo halka cudurka qaada dhici karta. qodobka labaad oo dhibaatada ku jira bulshada dad hadaa la joogtay neeftadaas inay dadka dhibto ayaa dhici karta. marka waxa weeye darar yuzaal dararkana lama ogola dhibka waa la zuulinay. عن أبي هريرة رضي الله عنه الله كره النقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيره قال وحير رسول الساعي قفك أشقي أخذ مية وعاوية على الأرملة قرابته والمسكين مسكينك كالمجاهد باللمي ذي قف جهادي في سبيل الله إلى جدك سكو جهادي وحسبه وحن لينا يا براوي يراد قال إنه يراهذب وكالقائم باللمي ذي متاجن الذي كاس لا يفتر عن وحوي دالين mid taagan oo istaagaas uu taagan yahay waliga aan daalayno qiyaam layl isaga taagan oo salaad isaga taagan aan waliga ka daalayn uu la mid yahay xagga ajirka qofka u shaqeeya qofta garabta iyo waxa weeye miskiinka waka saayimi buu la mid yahay mid sooman kaas oo la yuftiru aan waxa weeye afreyn mid sooman aan afreyn buu la mid yahay xagga ajirka
xadiiska kana nabigu wuxuu ku boorinaya in loo khidmeeyo waxa weeye garoobta waa qof guur hore soo maray oo guurkii ama ha laga dhinto oo ninkeeda ka dhinto ama ha furo marka haddana waxa weeyaan marka qoftaas garoob la yiraahdaa qoftaasi reerkoodii waagi gabadha ahayd aabaheedii reerkoodii bay ku tirsanayd iyaga waxa weeye wax siin jiray iyaga ku tirsanayd iyaga ka warqabo mas'uulka ahaa haddii ka tagtana ninkii ba mas'uulka ahaa ninkiina maanta ma hayso saas darteed waxa qoftaas qofkii u shaqeeyo oo wax tara oo saacida wuxuu la mid yahay waxa weeye qof jihaadayo oo Ilaahay jidkiisa u jihaadayo sidoo kale qofka miskiinka oo baahan miskiin waxa qofka soo baahan oo waxaysan qofkaas waxa weeye miskiinka qofkii waxa weeye wax siiya oo u shaqeeyo saacida isaguna wuxuu la mid yahay qof jihaadayo kale wuxuu kaloo raawi yiri waxaan u malayn inuu ku darayba nabigu qofka taagan oo qiyaamul u taagan oo kale la ajir yahay kaas oo waliga aan ka daaleen qiyaamulka qof sooman oo waliga afurayn waliga iska sooman ajirku helaya baa laga helaya labada shaqsi qofku u shaqeeyo عن أبي هريرة رضي الله عنه الله كره النقطة حديث كتبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحكوا ولي قال رسولك يهري ما يصيب مع سيبا المسلم قفك مسلم كان من نصب وحوي دالة ولا وصب يوحنون ولا هم وحو البهاء والولا يولا حزن وحمرقاء يولا أذى وحدبا ولا غم يوحوي والبهارة وغم ومرقاء حتى الشوكة قضح بها هاتي يشاكوها مديسة قفكاس إلا هدي يكون عضبا قضح يرو وداء ضمرا يكون مدي هدي وحير وإنت أصلا صوشي يكون عضبا كفر الله ألا وحوقنا في الروح بها وحيالها سوق جاري وحوي من خضاياه كففكيس قضح ذا مدي إلهي وحوقنا في شوكة داس هدي حتى مدو قضح يري دنبيدي سوى الله قضنا فيها waxay u tahay dambi dhaaf laakiin waa goorma haduu ku samrooway xadiiskana waxaan ka qaadanaynaa qofka muslimka ah dhibaato lama soo diristo laba shardi hadii laga helo kow inuu ku samro dhibaatadaas ku dhacday inuu ku samro oo uusan waxa weey hadii iska qaylqaylin marka wixii soo gaar haduu xanuunsado haduu daalo haduu dhibaato kale soo gaarto waxa soo dhaxta qodax yar oo muday hatta shawkata yushaakuha qodax yar oo muday waxa weey ما أصيبته إلا هدي أصيبته كفر الله له وحقوق في بها أيضا قضح راسبة من خضاياه وقففكيس متفق عليه مركا وحن كقاعدين إن حديث كاسنا إنه سمرنا لباتوين كانوا سوق الدنيا نجوجنا والدنيا إسكفانية وتجيسي وراخرة باقي جابا وحصلنا له إلاوية عمل كالصالح عبد كداليسا وحوي واضح نوصانيسا إلهي وحنوك كان سجانا قاعد كوسا مرادو